ka waran haddii hal dawlad ay yeelato tamar u dhiganta tamarta laga helo shidaalka adduunka yaalla oo dhan oo la isku dardaray dawladda awood intee la eg bay yeelan lahayd shiinaha oo si kasta isugu dayay inuu adduunka uga hormaro dhanka ikhtiraca iyo raadinta tamarta jaban ayaa ku dhaqaaqay jiha cusub oo tamar raadin ah taasoo dhulkiiba inta la iskala tegay hawada sare loo baxay wuxuu bilaabay qorshe soolarka cadceedda tamarta looga dhalinayo iyadoo isbeyska sare loo baxayo soolarku caadi ahaan wuxuu ka mid yahay ilaha laga dhaliyo tamarta korontada door ballaaran ayuuna ka qaataa oo sida ay sheegtay hay-adda tamarta adduunku marka la gaaro 2030 dabaysha iyo soolarka oo la isku daray waxay koronto dhalinta ka ahaan doonaan 30% oo ah sheer aad u ballaaran laakiin soolarka dhulka yaalla caqabado ayaa haysta caqabadahaasna waxaa ka mid ah habeenkii oo dhan waxba ma uu soo saari karo oo maalintii kaliya ayuu shaqeeyaa maalinta laftirkeeda haddii ay roob noqoto oo ay daruur hawada isku xiraan waxba ma uu dhalin karo taasoo ay u sii dheer tahay in mar walba uu dusha boor ka fuulo oo nadiifin joogto ah uu u baahan yahay intaasibana waxay hoos u dhigayaan waxtarkiisii ama wax soo saarkiisiiba China fikraddan ayay la timid marka waxay tiri sidee habeenka meesha uga saarnaa oo 24 saac solar koronto uga dhalinaa roob iyo dabayl iyo cimilo saameynteedna sidee booska uga saarnaa kadib ayay sidan yeeleen waxa uu soo baxday in ay solar ku rakibaan hawada sare meel 36,000 kiiloomitir u jirta dhulka korkiisa meeshan waxay u doorteen kama jirta habeen iyo maalin oo mar walba falaaraha qorraxdu si toos ah ayay ugu dhacayaan solarkii kama jiro roob oo daruurihiiba waa laga sarmaray ciid iyo isbedel cimilana warkiisa badaa caqabadahan la'aantood waxay solarka hawada yaalla ka dhigaysaa mid 10 jeer ka wax soo saar badan ama ka efficiency badan solarka dhulka yaalla solarkan ay hawada sare geynayaan Chinese-kuna waa mid ballaciisu uu gaarayo 1 kiiloomitir qalabkoodu sidan ayuu u shaqeynayaa gantaal lagu magacaabo Long March 9 ayaa qaadaya qalabka sida solarka agabyadiisii iyo robodyadii isku xirxiri lahaa ilaan bani aadamku aadi maayo halkaas hawada sare ayuu ugu baxayaa 36,000 kiiloomitir halkaas ayuuna dhigayaa qalabkii nasiib wanaagna hadda waxaa la gaaray in gantaaladii hawada sare wax geyn jiray ay soo noqdaan iyagoo bad qaba dibna loo isticmaali karo taasna waxay yareynaysaa qarashkii ku bixi lahaa mashruuca solarkii halka lagu rakibay ayaa waxa ku dhacaya falaarihii cadceedda oo ka kulul kuwa dhulka maadaama lagu soo dhawaaday qorraxda tamartii cadceedda ayuuna u bedelayaa microwave qalabkuna falaarihii microwave-ka ayuu u soo dirayaa xarun isagoo ku beegan oo dhulka loogu diyaariyay isagoo wireless ahaana ama xarig la'aan ah ayuuna u safrinayaa dhulkii qalabkii dhulka yeelay ayaa qabanaya falaarihii microwave-ka kadibna u bedelaya koronto la isticmaali karo waxaana halkaas ka qaadaya kaybalo waaweyn oo magaalada u safrinaya ama magaalada geynaya korontadii oo la isticmaali karo microwave-ka waxaa loo doortay sababahan gibilka sare ee dhulka si fudud ayuu u soo gali karaa isagoo aan tamar luminaynin halka laakiin ilayska caadiga ah ee daruuraha ama waxyaalaha kale ee ka hor yimaada sida qoyaanka oo kale ay kala firdhin karaan microwave-ku waxba ma yeelan noolaha kale sida dadka iyo shimbiraha hawada heehaabaya iyo xitaa diyaaradaha maadaama ay falaaraha microwave-ku ka khafiifsan yihiin kuwa ilayska caadiga ah oo ay u dhigmaan 6 meelood meel ilayska caadiga ah falaarihiisa dhumucdoodu 3 waxa kaloo lagu doortay haddii falaaraha microwave-ku ay kala baahaan marka ay safarkaas dheer ku soo jiraan si fudud ayaa loo soo ururin karaa markii ay ku dhacayaan qalabkii yeelay dhulka waxayna noqonaysaa in aysan tamar khasaarin ugu dambeynna waxaa fudud microwave-ka in si fudud loogu bedelo koronto ama conversion-ka ayaa u fududaanaya qalabkii meesha yaalay maadaama qalabka dhulka yaalay shaqooyinkiisa ay ka mid ahayd in falaarihii microwave-ka ee ku soo dhacay uu koronto u bedelo conversion-kuna waa uu fudud yahay iyadoo weliba efficiency-gu aad u sii sareeyo oo 80 ilaa 95% falaarihii meesha ku dhacay koronto ayaa loo bedelayaa iyadoo aysan tamar luminin su'aal muhiim ah ayaa timid marka sida aynu ognahay dhulku wareeg joogto ayuu ku jiraa oo waa uu isrogrogaa waana sababta ay habeenka iyo maalintu u samaysmayaan marka su'aashu waxay tahay qalabkii dhakada sare ee hawada yaalay miyaanu ka leexanaynin bartii oogada dhulka uu kaga beegnaa miyaanu ka leexanaynin oo aysan isdaba marayn si aysan taas u dhicin Chinese-ku farsamadan ayay sameeyeen
waxay sameeyeen in qalabkii hawada sare yaalay orbitka uu saaran yahay ay kula socodsiiyaan xawaaro la-eg midka uu dhulku ku wareego. halkaa ma ila fahantay? waxyaalahan hawada sare loo diro ma taagna, socod bay ku jiraan laftirkooda oo orbit bay saaran yihiin, line saasoo kale ah bay ku safrayaan. xawaarihii ay ku safrayeen ee linekaas ay kula wareegayeen iyo kii dhulka uu ku wareegayay bay isku mid ka dhigeen. deedna waxay noqotay in qofka dhulka jooga marka uu saa u fiiriyo ay la noqoto wax taagan halka korkiisa ah, laakiin isma ay dul taagnee way isla ordayaan xawaaro isla eg. ilaahay qudradiisa dhulkan aanu saarannahay 1670 kilomitir buu saacadiiba jaraya, waana iska dul saarannahay, waana sababta ay habeenkii maalinta u samaysmayaan. xaaladdan waxaa lagu yeeraa geostationary. marka qofku uu dhulka jooga wuxuu moodayaa inay isdul taagan yihiin, laakiin waa ay isla ordayaan oo lama dareemayo. taasina waxay keentay in labadii qalab mar walba ay isku beegnaadaan oo ay isku dul beegan yihiin. mashruucaani tamar intee lag ayuu soo saari karaa? sida ay qortay warbaahinta South China Morning Post, mid ka mid ah injineerada mashruucan uu maskaxdiisa ka yimid wuxuu yiri solarkan wuxuu u dhigmaa biyo xireenka Three Gorges oo hawada sare la geeyay. waa xagga wax soo saarka. waxa kale oo uu yiri wuxuu soo saari karaa tamar u dhiganta mid laga soo saaro shidaalka adduunka yaal oo dhan. biyo xireenka Three Gorges waa mid kale oo ay isla Chinese ku leeyihiin oo sanadkii soo saara koronto ama tamar la-eg 100 bilyan oo kilowatt hour waa sanadkii kaas oo hawada sare u la geeyay ayuu u dhigmaa buu leeyahay. deedna malaayiin guryo ah dab siin kara ama warshado. yacni tamarta sidaan u xoog badan waxaa meesha ku jirta in aysan qarash kale u baahanaynin oo ay tahay mid renewable ah oo cadceedda laga dhalinayo oo aan dhammaanaynin oo 24 saac 7 beri aan kala istaagaynin. shidaal laga walwaliyo inuu go'o maaha, marmar uma dayactir u baahanaya haddii uu wax u baahdo. hawada sare xitaa waxyaalo kharaabinaya sida air resistance ma jiro, cimilo isbedelaysa ma jirto, waa un energy iska soconaya. Chinese-ku laba arrimood bay ugu dadaalayaan tamartan saa'idka ah. waa midda koowaad, baahida ama isticmaalka korontadu waa ay laami doontaa 2050 sida ay sheegtay hay'adda tamarta adduunku. waayo 2000 korontada hadda la isticmaalo haafkeed ayaa la isticmaali jiray. 25 sano kadibna korontada adduunka laga isticmaalo waa ay laami doontaa. tan labaad, China waa warshadda adduunka ugu weyn ee alaab soo saarta, waana meesha ugu raqiisan ee alaab laga heli karo. si ay u sii wadaan iibinta alaabo jaban waa inay helaan tabar jaban oo ay warshaduhu ku shaqeeyaan. China waxay mar walba ku dadaashaa inay soo saarto alaab ka raqiisan alaabta adduunka laga isticmaalo. si production cost-gii ama qarashkii ku baxay wax soo saarku uu yaraadana waa in tamar jaban la helo. si ay mashruucan u hirgeliyaan, Chinese-ku waxay marsiinayaan 4 waji. wajiga koowaad waxa ay sameynayaan 2028 taasoo ay ku tijaabinayaan orbit ah 400 oo kilomitir meel dhulka ka sarreysa, waxaana uu soo saari doonaa koronto dhan 10 kilowatt. waana tijaabo wajigaani. wajiga labaad waxa ay sameynayaan 2030 waxaana ay geynayaan meel qiyaas ahaan dhulka u jirta 36,000 oo kilomitir. waxa uu soo saarayaa marakan 1 megawatt energy ama tamar u dhiganta. wajiga saddexaadna waa 2035 isla orbitkii ayaa la joogaa, laakiin waxa uu soo saarayaa 10 megawatt koronto ah. marka ugu dambeysana waa wajiga afraad oo ugu dambeeya waa 2050 waxa uu soo saarayaa tamar gaaraysa 2 gigawatt. waana mid ganacsi gal ah oo ay ugu talagaleen in ay u isticmaalaan ama warshadahooda ama inay adduunka kala ka gadaan tamartaas. kuwaasi waa Chinese-ka. 1977 arrinkan waxaa ka fakari jiray baa la yiri in ay isku daydo hay'adda NASA ee Mareykanka, laakiin way ku adkaatayo way ka caajiseen. sidoo kale Yurub gaar ahaan Ingiriiska ayaa arrintan aad u karkarinaya sidii uu arrinka uga shaqaysiin lahaa oo uu guul gaari lahaa. haddii China uu arrinkan u hagaago oo ay hesho tamarta sidaa u tiro badan ee nadiifka ah kala go'ana aan lahayn, waxay keenaysaa in adduunka kale oo dhan gaar ahaan adduunka horumarka ku mashquulsan in ay abuurto wax la yiraahdo tartan ama kala orod in lagu tartamo in cid walba ay hawada sare solar saarato. muuqaalkeen intaas ku egyahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.